48 saac la soo dhaafay magaalada Dhuusamareeb waxaa ka dhacay rabab xoog leh kuwaasoo saameyn ku yeeshay isku socodka dadka iyo gaadiidka. Daadad xoog leh ayaa ku soo rogmaday magaalada Dhuusamareeb kuwaasoo ka imaanaya biyo xirka magaalada Dhuusamareeb kuwaasi oo buux dhaafiyay xaafadaha ay ka kooban tahay caasimadda waxaana xaafadaha isaga soo baxay boqolaal qoys kadib markii biyuhu joog sare ay ku soo galeen magaalada Dhuusamareeb gudaheeda. meelaha ay saameyntu weyn ku yeesheen roobabka ayaa waxaa ka mid ah xaafadaha qaar iyo waliba maqaaxiyaha ay dadku ku ganacsan jireen. dhanka kale waxaa saraakic ku yimid gaadiidka dadweynaha gaar ahaan mooto bajaajta in magaalada macnaha biyo badan ay soo galeen haddana anaka aan dib ku qabno ayadoo magaalada marka hore ay saleen wax wada oo wadooyin fiican ay leen wadooyinkana ay dhisneen saasayda wadooyinkii intii yartaad oo macnaha laga bixi lahaana dawladda ay xiratay dawladda markay xiratay meel kasta oo xoogaa fiyoobeen dawladda meel kasta oo xoogaa fiyoobeen dawladda waa u xirantaa meeshii kana waa dhiiqo magaalada wada ma lahan marka roobka bacdi in lacag ku kordhiseen marka roobka ka bacdi dadkii bajaajka waxa soo saaran bajaajka gaadiid ayada meeshan BL kala ma ayada meeshan BL ka sababtoo bajaajka hadaan wadana dadweynaha u keenaa anaka ayaa nala leh anaka kaliin ma leeyin laakiin hadda qiimaha wax u kordhinay roobkii yimid iyo wada la'aantii oo dhacday sababtoo wadooyinkii ficnaana dawladda xirtay kuwa kalena macnaha dhiiqan oo goysay marka wax jaanjil yar inay macnaha ay sameeyaan ka cusubna maamulka isku duwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug Cabdiraxmaan Cabdulaahi ayaa digniin u diray shacabka ku nool magaalada Dhuusamareeb xoog leedahay biyo badan magaalada fariistay marka soo dhac marka dhanka xaaladda caafimaadka halka ka imaan karta waxay tahay koow hadii biyaas meesha fadhiya ay si fadhiyaan waxa ka dhalan kara germs taasna waxay keenaysaa in hadhow uu dhaco shuban biyood ama uu dilaaco ilmeerka biyo wasaqda ay cabaan ku dabaashaan waxa kaloo ka imaan kara waxa la yiraahdo kanaacada dadka loo yaqaan malaariyada oo asaguna biyo fris ka dhashay sidaa darteed marka wasaaradda caafimaadka gaar ahaan qaybta hadda Dhuusamareeb waxaan ku tala jirnaa insha Allah inaan biyaas aan daaweyno oo chlorine iyo wax ku shubno si maxallaha looga hortago sidoo kale waxaan ka codsanaynaa dadka dadweynaha deegaanka ama degmada biyaha meelaha xaafadaha iyo iska wareejiyaan ilmahan ay ka waardiyaan si maxallaha aysan cuduradaas u maanin si looga hortago cuduradaas dhici doona cudurada marka ugu badan waxaa kamid ah marka cudurada oo shuban biyoodka dilaaci kara taasna waxay keenaysaa marka in hadhow dhibaato badan ay ka imaato marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha bulshada ku nool Dhuusamareeb in arrintaas ay ka shaqeeyaan oo la iska kaashado isla markaasna mataqaanaa laga hortago cuduradaas wasaaradda caafimaadka diyaar waxay u tahay inay ka shaqeyso barnaamijkaas roobabkan ayaa waxaa ka dhalan kara cudurro kala duwan oo saameyn ku yeesha dadka ku dhaqan xaafadaha magaalada Dhuusamareeb Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Wilson Somali Cable TV Dhuusamareeb